Halkan waa barta wararka qodobadan idin waxaa ka mid ah laamaha amniga ee Dhuusamareeb oo kulan degdeg ah ka yeeshay xaaladda deegaanada Galmudug. Qodobada kale waxaa ka mid ah dowladda Kuwait oo diyaarinaysa shir aan looga baran Carabta oo lagu taageerayo Soomaaliya. Akhbaaraadka caalamka xilligan waxaa ka mid ah madaxweynaha Ruushka oo shimbir hadiyad ugu dhigay boqorka dalka Sacuudiga. U diyaar garooba daawadayaal warkii oo fidsan. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waxaa xalay lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga deegaanada Galmudug. Kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay wasiirka amniga ee Galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf waxaana kulanka qayb ka ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada maamulka Galmudug. Kulanka ayaa intiisa badan waxaa diiradda lagu saaray qodobo ay ka mid ahaayeen caqabadaha cusub ee amniga, howlgallada socda iyo xog ku aadan howlgallada qabsoomay. Wasiirka amniga ee Galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf ayaa saraakiisha ciidamada ku amray in ay la wajibaaraan howlgallada lagu sugayo amniga deegaanada maamulka Galmudug. Si kastaba ha ahaatee kulankii xalay la iskugu yeeray saraakiisha ciidamada maamulka Galmudug ayaa ku soo aaday xilli shalay ciidamada booliska iyo nabad sugidda Galmudug howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Dhuusamareeb ay ku soo qabteen qamri fara badan iyo dadkii ka ganacsanayay, iyadoo ciidamada meel fagaara ay ku burburiyeen qamrigii. Dowladda Kuwait ayaa diyaarinaysa shir aan looga baran oo lagu taageerayo Soomaaliya. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kuwait Khalid Al-Jalaalah ayaa shaaciyay in wadankiisa uu martigelin doono shir lagu taageerayo Soomaaliya. Wasiirka ayaa sheegay in shirkaasi oo ah mid looga caawinayo dhanka waxbarashada oo ay ka liidato uuna dhici doono sanadka soo socda ee 2020 kaasoo lacag loogu deeqi doono. Wakaaladda wararka ee dalka Kuwait ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano Kuna ayaa sheegtay in wasiir Khalid uu Axadii hogaaminayo kulan loogu diyaar garoobayo shirkaasi loogu deeqayo Soomaaliya oo noqonaya midkii ugu horeysay oo noociisa ah oo ay soo diyaariyaan dowladaha Khaliijka. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ayaa la kulmay diblomaasiyiin u dhashay dalka Kuwait iyo xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi si ay uga wada hadlaan sidii uu u dhici lahaa shirka lagu taageerayo lagana hortagayo wax walba oo keeni karo in shirkaasi uu baaqdo. Barakac xooggan ayaa ka socda xaafadaha magaalada Muqdisho. Barta wararka ayaa ogaatay baaritaan dheer iyo dadaal ay ku sameysay dhibaatooyinka dhinaca amniga oo ah muddooyinkii la soo dhaafay wajahayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool gudaha magaalada Muqdisho. Sheekadan ayaa ku saabsan dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay xaafadda Kaabogode oo kala qaybisa degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley ee gobolka Banaadir, kuwaasoo sababay barakac xooggan oo ka socda xaafadaasi oo dadkii degan ay iskaga guurayaan. Xaafadan oo deegaan ahaan horumar sameynaysa sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ka dilaacay ciidan u abaabulan qaab beeleed kuwaasoo dhibaatooyin ku haya dadka ku nool xaafadaasi. Dadka deegaanka ayaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ugu baaqeen in dhibaatooyinka amni darrada ay wax ka qabtaan. Mana jirto wax war ah oo ka soo baxay degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley oo ku aadan cabashada ka soo yeeraysa dadka ku nool xaafadda Kaabogode. Markaan akhbaaraadka caalamka waxaa ugu doorkaroon madaxweynaha Ruushka ayaa shimbir hadiyad ugu dhigay boqorka Sacuudiga. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa boqorka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan bin Cabdilcasiis hadiyad ahaan ugu dhigay shimbir nooceedu uu dhif yahay oo laga helo wadanka Ruushka oo kaliya. Shimbirtan oo u eg gorgorka ayaa lagu magacaabaa Arctic Falcon waxaana laga helaa gacanka Mjaadka ee ku yaala bariga fog ee dalka Ruushka. Waxaa jira kumanaan xabo oo ka mid ah shimbirkan wuxuuna halis ugu jiraa in uu dabargo'o. Muuqaal lagu shaaciyay telefishinka Ruushka iyo Sacuudiga iyo qaar ka mid ah baraha bulshada ayaa lagu arkay Boqor Salmaan oo u muuqda inuu aad ula dhacsan yahay hadiyadda qeyrul caadiga ah. Booqashada uu Putin Isniintii ku tagay Sacuudiga ayaa ahayd mid qeyrul caadi ah waana tii ugu horeysay
ee uu halkaas ku gaaro tan iyo sanadkii 2007. Waxaa la filayaa in hogaamiyaha Ruushka uu Sacuudiga ugu sii gudbo wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta si uu u sii xoojiyo xiriirka kala dhaxeeya dalalka Bariga Dhexe. Warkii aad ka daawanayseen daawadayaal barta wararka waanaga intaa. Haddaad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe dheh si aad u hesho wararka iyo warbixinooyinka iyo macluumaadka kale ee halkan aan ku soo baahino.